wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wasiirre iyo xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah iyo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa magaalada Kismaayo u yimid u kurgelidda xaaladda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo dardargelinta wajiga labaad ee howlgalka dib u xoreynta dalka oo qorshuhu yahay in dhawaan si dardar leh looga bilaabo deegaanadan si looga cirib tiro kooxaha khawaarijta ah ee ku dhuumaalaysta deegaanada farakutiriska ah. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa muddada uu ku sugan yahay Kismaayo ka shaqeynaya xaqiijinta Jubbaland heshiis ah fidinta gogol midaysa dadka deegaanka iyo dhageysiga talooyinka wax ku oolka ah ee bulshada deegaanka ee ku aadan dowlad dhiska Soomaaliya iyo horumarinta dalka. waa safarkii ugu horeeyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku soo gaaro deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland tan iyo markii dib loogu doortay madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda 15 May 2022. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka, Kismaayo.